aan ku bilowna golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa uu meel mariyay hindisa sharciyeedka qoondada haweenka ee kuraasta baarlamaanka. Dumarka Soomaaliyeed iyo waliba ururada u dooda xuquuqda haweenka ayaa tallaabadaasi soo dhaweeyay. haddaba si aanu arrintaasi in badan uga ogaano waxa iyada oo magaalada Muqdisho ku jirta khadka toos ugu jirta xildhibaan Caasho Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaan marka hore soo dhawow. waan dhawahay waan salaamayaa VOA iyo walaalkay Jacfar 22 bisha 6 waxaan ansixinay 22 bisha 6 waxa la ansixiyay qoondadii haweenka xeerkii qoondada haweenka ee matalaada kuraasta labada aqal qoondadaas haweenka ee la ansixiyay waxay ahayd 30% in ay haweenka maxadan ay ku yeeshaan xisbiyada 30% ay soo gudbiyaan iyo in 24% iminka ku fadhida loo xiro gabdho oo gabdho kaliya ay ku tartamaan taasina waa guul soo hoyatay haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waayo mar haddaan helnay matalaadii siyaasadda aanu ka helnay 24% fadhida hadda inay gabdho kaliya ku tartamaan oo una rag nagula tartamin waa Ilaahay mahadiis 60% naga dhimana waxa laga sugayaa guddiga doorashooyinka qaranka waayahay dadka qaarkiiba arrintaas aaminsan in qof gaara loo xiro kursi gaara oo qof kale la yiraahdo lama tartami kartid in ay ka hor imanayso dastuurka iyo waliba xaqqa qofku uu u leeyahay inuu isharraxo arrinta maxaa kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabayaa dastuurka iyo xaqqa dadku leeyahay ayaanu ka mid nahay waxa weeyaan 275 iyo 54 aqalka sare ah haddaba 80 ku leenahay inta kale rag uu leeyahay haddii la yiri si loo xaqiijiyo say gabdhihi ugu soo noqdaan maaha Caasho Koos Maxamuud Cumar ayuu kursigu xidhayay wuxuu xidhayay gabdhaha Soomaaliyeed way ku tartamayaan ragga Soomaaliyeed waxaan leenahay intii ka badnayd bad haysataan walaalayaal iimaanka iskaliya una daaya haweenka Soomaaliyeed ha ku tartamaan say uga dhex muuqdaan golayaasha siyaasadda waayo haddii una haween ku jirin meeshu waad ogtihiin haweenku waxa weeyaan hooyo wax kasta ka naxayaan raggu markay isqabtaan annaga kala celina waad aragteen baarlamaankan ku dhex jirnaa uguma jirna kaliya ta uun deynaan maxadana fadhino oon ragga qurxinee waxaanu ugu jirnaa inaanu ka dhex muuqano siyaasadda dalka inaan wax ugu qabanno dalkayaga iyo dadkayaga marka waxaan leenahay ragga Soomaaliyeed 24% baan haysanaa xubnood intii ka badnaydna way haystaan maxay u diidayaan dastuurkuna nooma diidayo diinteena islaamkuna waxayba nasiisay xaq ka sii badan xildhibaan Caasho ragga kaliya ma aha dumarka ku jira baarlamaanka laftooda qaar ka mid ah arrintan ka soo horjeeda oo leh ma aha in kursi loo xiro haween kaliya oo la yiraahdo raggu lama tartami karo arrinta ka waran soo lama dhihi karo haweenkii la fahantooda baaba ku kala jaban kumanu kala jabnayn Jacfarow waxa weeyaan dadka aad aragtay ee lahaa kuraasta hal la sameeyo waxa weeyaan waa dad iyagu doonaya wax kale oo kursigooda in si gaar ah waxa ku helaan ay rabeen laakiin haweenka Soomaaliyeed ee ku jira labada aqal iyo haweenka civil society-ga kuwa dibadaha jooga waxay nagu bushkareynayeen in aanu xaqiiqada aanu ogaano oo 24% maanta ku jirta la xaqiijiyo 6 kursi ee dhimana guddiga doorashooyinkan ka sugaynaa gabdhuhu waxay la tartamayaan ragga 6 kursi ee naga dhiman laakiin tan 24 gabdho kaliya ku tartamay laakiin arrintan soo kama qurux badnayn in la furo oo la yiraahdo ragga iyo haweenkaba ha wada tartamaan oo markaa la ogaado cidda ay dadku dooranayaan oo ay ku kalsoon yihiin markaa qofka la doorto waxaad moodaa in uu ka sharciyad badan yahay qof kursiga loo xiray oo la yiri lama tartami karo ee keligii ha tartamo waxaan kala jeedaa dumar hadda dalku wuxuu leeyahay sharci la yiraahdo sharciga doorashooyinka qaranka sharciga doorashooyinka qarankina wuxuu sheegayaa in qof iyo cod lagu dooranayo horta gabdhaha Soomaaliyeed way ka bixi doonaan koontadan iyo hawlahan qabiilka iyo wax oo dhano insha Allah xisbiyada ayaan si fiican uga soo qayb galaynaa laakiin intan hadda hawshan lagu jiro kuraastaas waa inay u astaysan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed mana aha wax maxay loogu xiray shakhsi gaar iyo qof gaar loogu xiray waa wax loogu xiray matalaada siyaasadda say gabdhuhu uga soo qayb gali lahaayeen walaal waad la socotaa wacyiga
iyo xilliga heer mar walba heerka uu wax marayo waad la socotaan iyo siday maanta ku timid 24% maanta ku fadhida in looga dhigo saldhig looga dhigo haweenka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan gabdhaha Soomaaliyeedna anu waxaan u maleynayaa inayna ku kala qaybsanayn 24% saldhiga maanta u ah inayna ku kala qaybsanayn oo inoogu soo wada hambalyeeyeen kuwa dalka jooga kuwa dibadda joogaaba kalsooni darro ama cabsi baa muuqata dumarka haysata marka doorashada ay timaado oo waa kuwan u ololeynaya in kuraasta iyaga loo xiro hadda ay ku fadhiyaan maxay ku salaysan tahay cabsidaas iyo kalsooni darradaas idin haysa xaasha lillah wax kalsooni darra oo naga haysata haba yaraatee ma jirto laakiin ba meesha ku jirta kuraasta gabdhuhu raggu siday u leeyihiin ay ugu tartamayaan ay u xoogayaan ayaan diidanahay waxaan leenahay war inaan rago waan kula dhashay adigana oday baa ku dhalay anigana oday baa dhalay reerka kursiga la siinayana waan ka wada dhalanay marka haddaan walaalkayo labadeenu tartanood ku guulaysato khayr haddaan ku guulaysana khayr wayna soo socotaa taasi gabdhuhuna waxba kama qabaan haddaba waxa la nagu dooranayaa maaha doorasho dadban ee waxaan galaynaa cod u midaysan dadkoo dhan oo ay cod bixiyaashu xaq u leeyihiin inay waxna doortaan nana doortaan iyagana la doorto laakiin markii hore odayaasha baad ka qabteen cabsi oo waxaad lahaydeen odayaasha dhaqanku uma bisla in dumarka ay soo sharaxaan ama ay cod siiyaan ama ay u ogolaadaan inay is sharaxaan hadda odayaashii waa laga gudbay sida aad sheegayso oo dadkii baaba wax dooranaya marka maxaa idin diidaya in aad ragga isgarab taagtaan oo aad nasiibkiina qaadataan horeyba waanu gallo waanu sameynay Jacfar baarlamaanka waxa fadhiya gabdho rag ka soo qaaday oo la tartamay odayaashuna ma ahayn odayaal dadka gabdhaha wax u wada diidaye anigaba odaygayaga ay keenay 12 16 isaga ay keenay haddana walwal kama qabo oo hadii odayaashu waxa xulan la yiraahdo oo aan rabo inaan soo sharaxo inaan ka waayayo beeshaydii isiisay aniga iyo intay la midi laakiin waxa la raadinayaa waxa weeyaan gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqdoodani waa xuquuqda matalaada siyaasadda laakiin xuquuqda kale ilaahay baa banasiiyay idinkuna waad ogtiin alxamdulillah rabbil caalamiin kitaabkeena ugu taala suuratul nisaa ayaa lan ilaahay uu gaar nooga dhigay tanna waxa weeyaan tii aan ku matal lahayn intaan ka hayn madaxweynaha ra'iisul wasaare inaan ka qayb galo siyaasadda mana aha kaliya ta koontoondan la xidhaya 30% waxaan ka rabnaa wax walba wax la soo doortay iyo wax la magacaabay 30% baan ka rabnaa maantana haweenka Soomaaliyeed way ka midaysan yihiin Jacfar waxa nagu soo dhacaya hambalyooyin badan ay noo soo dirayaan daliya dibadba xuquuqul insaanka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee meel walba jooga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay gabdhaha iyaga maanta matalaya siyaasadda in aan xaqiijinay in kuraastii baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay gabdho kaliya ku tartamayaan taas ilaahay mahadiisa waayahay ugu dambeyntii 24% baad hadda ku fadhisaan 6 baa idin ka maqan sida aad sheegayso 6daas sideed ku heli kartaan 6da waxaan ku heli karnaa sida gabdhaha qaar hadda ugu fadhiyaan kuraasta waxaan la tartamaynaa 6da naga dhiman raggan la tartamaynaa iyo ka badan helana waa laga yaabaa hadda waxaan raadinaynaa 30% waxa laga yaabaa marka 6 naga dhiman gabdhuhu ay tartanka galaan inaanu ragaba ka soo badino 30% iyo ka badan aanu helo diinta islaamku intayna siisay oo ah 33.3 baan leenahay diiniyan marka la qaybinayo marka inta ma rabnay 30% ma rag ayaga weydiisanay idinkuna 70% qaataan leenahay intii bay nagu daba joogan oo ilayeen gabdhuhu maxay koontada loogu xidhay maxaa loogu sameeyay walaalow ku kasto qurux badan iyo mid walba wax qabanayo gabadh baad ka soo agtoostaa gabadh baana ku dhashay midna waad dhashay waayahay aad baad u mahadsantahay xildhibaan adiga mudan Jacfar 100% taasi waxay ahayd xildhibaan Caasha Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyadoo magaalada Muqdisho joogta iyo waramaysay